Shilay maanta isugu yimaadeen siyaasiyiinta ganacsatada waxgaradka beelaha direed ayaa waxaa lagu qabtay Muqdisho. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay baaq ugu diriyeen beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanada Deefow iyo Kabxanley oo ah duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabada kadib waxay siyaasiyiinta ganacsatada iyo waxgaradka beelaha direed ay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanada Kabxanley iyo Deefow. war-saxaafadeedka ay soo saareen siyaasiyiinta ganacsatada waxgaradka beelaha direed ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare injineer Cabdulaahi Xaaji Abuukar Carab. waxaa maanta shir isugu yimid madaxda siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada beelaha direed. shirkaas oo ka dhacay Gobsoor iyadoo looga hadlayay ama lagu falanqeynayay dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Hiiraan tuulooyin ku yaala Deefow iyo Kabxanley colaadda ka soo cusboonaatay. waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkaas wixii ka soo baxay ama bayaankii ka soo baxay. waxaan ugu baaqaynaa beelaha dariska ah ee deegaankaas ee walaalaha ah nabad baaq nabadeed baan u diraynaa in la joojiyo colaadda halkaas ka soo cusboonaatay, in lagu dhaqaaqo xabad joojin degdeg ah oo aan mar dambe aysan xabad ka dhicin. waxaan ugu baaqaynaa dowladda iyo hay'adaha qaabilsan amniga iyo dib u heshiisiinta inay ka howlgalaan aaggaas oo ay ciidanka kala qaadaan oo ay dib u heshiisiin ku dhaqaaqaan si nabad waarta loogu dhalin lahaa deegaanada Deefow iyo Kabxanley. waxaan kaloo hay'adaha caalamiga iyo kuwa deeqda bixiya aan u jeedinaynaa inay gurmad degdeg ah u fidayaan maatida iyo shacabka ka barakacay deegaanada Deefow iyo Kabxanley. culamaa u diinka iyo bulshada rayidka ah ee gobolka Hiiraan ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay arintaas ku baxaan oo dhex galaan oo dadka walaalaha ah ay kala dhex galaan meeshaasna ay ka dhaliyaan maslaxad iyo nabad. waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed inay arintaas ay ku baxaan si loo helo nabad waarta oo deegaankaas ka dhacda. baaqan ay dirayaan beelaha direed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe uu horey baaq ugu diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanada Kabxanley iyo Deefow. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.